Salaamullah dhammaantiin guys meel kasta adduunka joogtaan waxaan fiidiyowga idinkula wadaagi doonaa laba shuruudood oo YouTube-ka lagu soo kordhiyey haddaad tahay YouTuber ama aad qorsheynaysid inaad YouTuber aad noqotid waxaad u baahan tahay inaad labadan shuruudood ogaatid labadan shuruudood oo midna 2020 haddaan ku guda jirno lagu soo kordhiyey oo YouTube-ka ku soo kordhiyey iyo sanadka soo socda hadda bishan socoto uu inaga xigto iyadana shuruudo kale oo YouTube ku soo kordhin doono haddaad labada aan soo sheegnay aad tahay ama YouTuber ama aad qorsheynaysid inaad YouTuber noqotid waxaad u baahan tahay oo aad ku anfici doona inaad daawatid fiidiyowgan bilow ilaa dhammaad si aad u ogaatid shuruudaha YouTube-ka uu ku soo kordhiyey guys. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود دمانتي وسلامتي ملك سأدونك جوكتان. هل كان قد داونيسان واتشنالك Somali Entrepreneur أنا قم مقاعدون ولكن صاحبكين ويلكين عبد الديس. So guys welcome back to another video. أصحابتي لو شوفتي أدي أد بقومها سنتين. أصحابتي channelك عصبنا سودوا هذا channelك وchannelكيني. أوكي. أنت كدب ما أنت وحنا ربعنا فيديو عن كذا هذا لبضع قضب أو يوتيوب كله بسوا كردية. labada qodob oo aan fici doono haddaad YouTuber tahay iyo haddaad hadda qorsheynaysid inaad YouTuber noqotid haddii aad doonaysid inaad labada qodob ogaatid fiidiyowgan daawo guys aad buu idin anfici doonaa waa waxyaabo la isaga baahan yahay inaad ogaataan haddaad YouTuber tahay okay qodobka koowaad wuxuu noqonayaa wixii ka dambeeyay 2020 July bishii 6 bishii 7 in YouTube-ka lagu soo kordhiyey kolley waraaq baa loo soo diray dadka YouTube-leyda ah kolley waxayna u egtaa waraaqdaas inaysan dadka intooda badan aysan fahmin amaba wixii laga wada aysan garanin kolley dad badan oo YouTuber oo fahmay way jiraan dad aan fahminna way jiraan marka waxaan rabaa inaan xoogaa idin cadeeyo ama idin kala bayaaniyo waraaqda waxay ahayd in sanadkii 2020 hadda aan ku jirno bishii 7 ama bishii July wixii ka dambeeyay waxa loo ogolaaday qolyaha YouTube-leyda ah in fiidiyowga wixii ka badan 8 daqiiqo loo saari doono xayeysiin meesha halkii hore oo 2020 bishii July uu fiidiyowgaaga ku khasbaneed inaad 10 daqiiqo gaarsiiso si loo saaro xayeysiin wax hal mar ka badan si loo saaro waxaad u baahneed inaad fiidiyow sameysid 10 daqiiqo ah markii fiidiyow 10 daqiiqo aad sameysid baa waxa lagu saarayaa xayeysiin wax hal mar ka badan ama 2 mar ama 3 mar ama wixii ka badan waana khasab bay ahayd laakiin 2020 oo hadda ku jirno bishii July wixii YouTube-ku hoos u dhigay in qofka uu ku khasbanaa inuu sameeyo 10 daqiiqo fiidiyoo inuu sameeyo 8 daqiiqo marka hadda 8 daqiiqo fiidiyoo aad sameysid xayeysiinta hal mar ka badan iyo 3 marba waa lagu saaraya marka waraaqda iyada halkan soo dhigi doonaa waraaqdu macnaheedu saas u ahaa in YouTube-ka wixii ka dambeeyay July 2020 haddaad ku khasbaneed inaad 10 daqiiqo oo fiidiyoo aad sameysid ama wax ka badan si aad xayeysiin badan aad u heshid hadda 8 daqiiqo fiidiyoo aad sameyn kartaa xayeysiintana waa lagu saaraya qodobka koowaad waa kaas waxaan rajayn doonaa inaad aad u fahanteen dhammaantiin guys qodobka labaad wuxuu noqon doonaa 2021 bishii January wixii YouTube-ka uu qorsheenayaa in markii hore kolley hadda dad badan baa YouTube kusoo biiraya caalamka ama daafaha dunida kala jooga Soomaalidu anagu aan ka mid ahayna hawo badnaataba marka hadda YouTube-ka 2018 baa waxa la keenay qorshe ah markii hore waxa jiray in qofka hadduu 5 subscribe oo haysto laakiin uu gaaro 10k oo views ah in qofka fiidiyowgiisaas 10,000 gaaray in loo saaro xayeysiin laakiin wixii ka dambeeyay ama bilowgii 2018 YouTube wuxuu qorsheeyay in qofka YouTube-ka hadduu ku cusub yahay uu gaaro 1k subscribe iyo sidoo kale 4,000 watch hours marka hadda waxa bal isku haystaaba arinta ahayd
1k subscribe iyo 4k watch hours. dad badan oo waxa arkaysa ama dhalinyaro badan oo YouTube lay ah oo Soomaali oo YouTube ka cusub oo dhahaya commentiyada kusoo qoraya ilaahay dartiis igu saara maxay ahayd fadlan like ii saara fadlan subscribe ii saara. marka dhalinyarada hadda saas u cabaadaysa oo saas maxay ahayd subscribe-ta u doonaysa watch hours-ka inay buuxsadaan. maxaad u malaysaa shuruudda hadda labaad oo 2021 la rabo in lagu soo kordhiyo YouTube-ka? okay, shuruuddan labaad maxay noqonaysaa? shuruuddan labaad waxay noqonaysaa 2021 bisha January oo hadda waxaa naga xigta hal bil in YouTube-ka uu ka dhigi doono meeshii 1k subscribe ahayd inuu ka dhigi doono 10k subscribe in qofka looga baahan yahay. meeshii watch hours-ka 4k ahaydna in 5k watch hours laga dhigi doono. okay, arrintaas aad bay u saameynaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo hamiga u haya inay YouTube ay furtaan markaasna ay kusoo gudbiyaan waxyaabaha talentiga ama haybada ama ay u leeyihiin talentska. soo marka de kulley qofkii u baahnaa inuu YouTube-ka uu gaaro inuu 1k ama 4k watch hours uu sameeyo qofka isaga bay u taalaa. laakiin qofkii himilo intaa ka badan doonaya inuu YouTube ka sameeyo ama tusaale ahaan oo kale 10k inuu gaaro iyo ka badanba 100k 200k half million inuu gaaro aad bay rajadiisa uga dheertaa qofkaas oo waxaas oo arrintaas oo kale waa qof haya waa qof himilo weyn haya. marka arrintaasna ma celin doonto. marka commentiga hoos waxaad igu reebtaan maxaad u malaynaysaa haddii meeshii 1k subscribe ahayd laga dhigo 10k subscribe in qofka uu soo buuxsho sidoo kalena ay sugayso meeshii 4k ama 4000 watch hours ahayd in looga dhigo 5k. kulley waa dareemi kartaa waa arrin aad u xanuun badan. waxaana u sheegi doonaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo YouTuberada ah ama kuwa ku cusub YouTube-ka ama kuwa haddaba soo galay in aad la soo taageero oo qof walbana talentigiisa iyo waxa uu hayo uu isdhihi karo dadku u gudbin kartaa inuu u soo gudbiyo uu markaas si uu horumar uga gaaro YouTube-ka. maadaama shuruudahan waliba shuruudda dambe ay shuruud aad u adag ay tahay laakiin isagu danteedee qofkii meel fog hiigsanaya ama vision fog leh ama YouTube inuu horumar ka gaaro waxba lama ahan markii aan si u yara eegno. marka labada shuruudood ma waxaan israaday asxaabta la wadaag labada shuruudood oo aad maxay ahayd aad u malayso in ay u dhibaateynayso qofka haddii YouTube-ka uu doonayay inuu u soo galo inuu just ciyaar iyo maxay ahayd madadaalo ama just entertainment ama adigu kulli YouTube entertainment uu yahay laakiin ciyaar qofka u soo galay kulli u malayn maayo inuu ka bixi karo. marka asxaabta YouTube-ka ku cusub iyo asxaabta YouTube-ka lehba waxaan ku bogaadinayaa u sheegayaa inay istaageeraan oo YouTube-ka dhalinyarada maxay ahayd doonaysa inay horumar ka gaaraan ama anigu aan ku jiro inay taageeraan oo ay like siiyaan oo channel-kana subscribe u saaraan. sidoo kale dadka YouTube-ka iska leh ama qofka haddii uu dhalinyaro yahay YouTube furanayna waxaan ku bogaadinayaa ama u sheegayaa inuu dadka la wadaago waxyaabo bulshada u fiican isagana magac iyo sumcad u yeelaysa oo waxyaabo magaciisa iyo sharaftiisa dhibaato u keenaysa inuusan YouTube-ka soo dhigin. intaasaan go'aansaday inaan asxaabta YouTube-ka ku xiran aan idinla wadaago maadaama aan YouTube-ka ayaamahan aan soo dhigin video aan asxaabta la wadaago. marka labada shuruudood baan rabay inaan idinla wadaago. shuruudda koowaad oo ah haddii aad nagu soo biirto hadda video hadda aad daawanaysid in YouTube-ka wixii ka dambeeyay 2020 in xayisiinta qofka haddii la rabo in loo saaro xayisiinta in uu u baahnaa inuu 10 minute oo maxay ahayd video uu sameeyo laakiin hadda laga dhigay 8 daqiiqo si xayisiin wax hal mar ka badan loo saaro. iyo talabaad oo ah 2021 bisha January inay hirgeli doonto sida loo maleynayo in meeshii 4k watch hours ahead iyo 1k subscribe ahead in meeshii 1k subscribe ahead ay noqon doonto 10,000 ama 10k subscribe meeshii 4k watch hours aheadna ay noqon doonto 5k watch hours. anyway video inaan dheereeyo ma rabo. haddii aad YouTube ka ratid adaan kula hadlayaa wiil ama gabar waxaa doonta ahow haddaad rabtid inaad YouTube horumar ka gaartid 10k iyo 50k
iyo 100k iyo ka badanba waad gaari kartaa laakiin haddii aadan usoo jeedin haddaba waqtigaaga iska khasaarin fiidiyowga intaas kusoo gabagabayn doonaa intaan fiidiyo ku kulmi doono oo walaakin cabdul ds oo idinlo si aragti dambe waxay guys bye bye ciao ciao guys